munaasabaddan oo ay soo qaban qaabiyeen qaar ka mid ah waxgaradka degmada Xudun ayaa lagu soo bandhigay fardooley iyo fardo aad u tiro badan kuwaas oo laga keenay deegaano kala duwan si ay markaas uga qayb galaan toddobaadka iyo fardafuulka Soomaalida oo loo qoondeeyay in lagu qabto dooxada balladkeedu halka ugu ballaaran yahay isla markaana waqti ay deylan tahay oo dhulku cagaaran yahay ku soo beegantay dadweynaha ku dhaqan degmada Xudun iyo dad aqoon-yahan ah oo fardaha ku xeel dheer ayaa isaga yimid deegaano kala duwan kuwaasi oo daawanayay kana warbixinayay fardaha iyo noloshoodii hore iyo haatan sida ay yihiin waxaana halkaasi ugu horeyn ka warbixiyay Maxamed Jaamac Mahad oo ka mid ah guddiga qabanqaabada waxaana uu sheegay fardahan barnaamijkan iyo inta uu socon doono iyo arrimaha looga goleeyahayba wuxuu socon doonaa muddo 7 casho wuxuu dhamaan doonaa haddii Ilaahay ka dhigo 27 bisha 6 7 casho waxaa ka soo qayb gali doona farda kala duwan iyo fardafuulo cusub iyo dad kala duwan iyo ka qaybgalayaal hay'ad kala duwan laakiin marka hore haddaan idin soo qadibo magacyada fardafuulka maanta lagu bilaabayo oo ah 20 bishii 6 waxa diyaar inoo ah fardafuulada ay ka mid yihiin Cabdixakiin Maaweel Daarood oo ku magac dheer Warqabe ninka la yiraahdo Salaaman Bulaale Cadaan oo ku magac dheer Sabango ninka la yiraahdo Jaamac Awil Warsame oo ku magac dheer Tarotaro ninka la yiraahdo fardafuul Faarax Maxamed Bootaan iyo fardafuul Xirsi Jaamac yare gudoomiyaha bandhigani Axmed Cali Faarax ayaa isagoo ugu horeyn halkaasi uga mahad celiyay dadkii gacanta ka geystay iyo kuwa ku taageeray si niyad ahba waxaana uu ka xusay qaar badan oo ka mid ah dadkii iyo shirkadaha iyo qaababkii kala duwanaa ee ay taageerooyinka u heleen intii ay wadeen ololaha barnaamijkan ay ku soo bandhigayaan fardaha Soomaalida khaasatan kuwa degmada Xudun tartanka fardafuulka Soomaalida waxaan kaloo mahad gaar u celinaynaa Qadar Maxamed Xaashi oo ah nin dhalinyaro ah oo dhashay degmada Xudun isla mar ahaantaasina madaxa hay'ad warbaahineed ama hay'ad production wax soo saar oo loo yaqaano Solas oo ku dhaqan wadanka Ingiriiska maanta lamida waxaan u celinaynaa Cabdinaasir Xirsi Oogle oo ka mid ah aqoon-yahanka degmada Xudun kuna dhaqan wadanka Australia oo isaguna ah dadka dhiirigeliyay ballan qaaday in fardaha la xanaaneyn doono diyaarna u yihiin inay u sameeyaan goob lagu dhaqaaleeyo rag kale oo badan oo magacyadooda xusi karin oo qurbaha jooga qaarkoodna ay dalka joogaan iyo gabdhaba ayaa waxay diyaar u yihiin in baaqiga hantideeni maguurtada ahayd iyo fardihii ay caanka ku ahaayeen reer Xudun ee kumanaanka gaari jiray sidii loo soo celin lahaa loona xanaaneyn lahaa madaxa bishaas degmada Xudun ahna gudoomiyaha ku xigeenka bandhigani Cabdullaahi Yaasiin Warsame oo isna halkaasi ka hadlay ayaa in badan ka hadlay qorshahoodan iyo sida ay u damacsan yihiin iyo rajada ay ka qabaan in ay helaan natiijo wanaagsan oo lagu xanaaneyn karo fardaha ay qaban jireen hadeer ma qabtaan laakiin waxay ka shaqeeyaan nabadda waqtiyada maaragtay starterka oo kale way ka faa'iideeyaan hadda waxa weeyaan ilaa 5 kiis oo maaragtay caafimaad oo ay ka qayb qaateen oo ay noogu yimaadeen oo gurma degdega aan ku fidinay fardaha xasan maxamuud dhiilood oo ah siyaasi isagu ku sugan degmada Xudun horeyna xil heer wasiir ka gaadhay maamulka Puntland fikirkana isagu soo bandhigay ugu horeyn kalana tashaday raggan haatan ay hawsha ku wada jiraan ayaa waxa uu sheegay in ay dhibaatada ugu badan ay tahay xanaanad darrada fardaha haysata iyo waliba isaga oo binixiyay diib xoog leh oo lagu hayo wadanka fardaha jooga dhadigooda iyo labkoodaba oo la geenayo wadanka Djibouti dhawaan waxa farda laga iibshay sidaan mar horeba xusay degmooyinkan Xudun iyo Taleex fardaha wax la geeyay Djibouti waa dhul Soomaaliyeed hantidu Soomaalida waa ka dhaxaysaa laakiin madaxweynaha Djibouti
mudane Ismaaciil Cumar Geelle waxaan ka codsanaynaa waxaan rajaynaynaa si aanay u noqon inay meel ka dabar go'aan meel ku beermaan madaxweynuhu inuu naga caawiyo sidii fardahaas ay Soomaali oo dhan halkan uga qaadan lahayd sida beeraha loo abqaabo oo ay halkan tahay halkii farduhu ka soo baxayeen naga shaqeeyaan waan ugu mahadcelinaynaa bilaha cas oo dhan oo uu nagala joogo Jaamac Warsamo Gole iyo Khadar Maxamed Fardaale oo iyagu ah rag aqoon u leh fardaha ayaa labadooduba waxa ay ka hadleen fardaha iyo heerarkii ay joogeen qaabkooda midabkooda iyo siyaabaha kala duwan ee loo yaqaano iyaga oo si wanaagsan uga dhargiyay dadkii halkaasi daawanayay midabada farduhu leeyihiin magacyadooda ay kala sheegayaan kan waa xambarkii badbadan kan waa bulaal kan waa xambarkii badbadan kan waa caynab fardaha oo ragii dhaqi jiray ka faraha kala baxay kullay dhulkay daaqi jirayna wax iska yar bedelay marka waxaan codsanayaa oo adduunka cid kasta oo danaynaysa in fardaha la dhaqaaleeyo oo wax loo qabto oo loo xulo xudumooyin loo sameeyo. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi lagu soo bandhigay tartan orod ah kuwa ah qaababka ay dadku lagu eegayo tababarka ay qabaan farduhu afyaqaannimada sida ay ula socdaan wadaha ama fardafuulka iyo farasku qaabka ay u wada jaan qaadayaan iyo waliba qiimayno badan oo ay sameynayeen guddigu oo ay soo bandhigayeen ragga fardoolida ahi waxaana halkaasi ku sharaxnaa qaar ka mid ah shirkadaha ganacsiga oo ay Telesom ugu horeyso Faysal Jaamac Kalsan TV degmada Xudun.